السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة يتنال كاني يول ستوديو أصحابتا waxaan idin raali gelinaa inaynu maqnayn ama channelka waxba soo gelin 3 bilood ku dhawaad sababo jira awgeed oo hawlu iska badnaayeen caqabado badan saarnaayeen laakiin maanta waxaan u soo fadhiisanay inaynu barti ka sii wadno barnaamijyadeeni aynu soo gudbin jirnay ahaa barashada video qurxinta ama video editingka iyo filmmakerska barnaamijka ama videoga maanta aynu baran doono waxa uu yahay face motionka soo ah ama wajka lagu dulqaajiyo bal videoga igala soo bogtay la daawada daawadayn ka soo noqono videogaas saad arkayseen waxa uu ahaa video dhaqaajinta wajiga ama wajka lagu dulqaajinayo haddii aan casharka guda galno in bilowno marka ugu horeysa waxa sameynaysaa waxa soo furanaysaa premierka marka soo furato waxa soo qaadanaysaa videoga arkaysaa videogaas ayaan soo qaadanaa waxaan ku jarnaa halkaas intaas aan soo qaadanaa waxaan soo dhiganaa template-keeni ama title-kii meesha taqaaneen waxaan sameynaa rectangle baan soo qaadanaa waxaan ku jareynaa wajiga quraatayna jarana waayo kan waa wajiga kala soo dhaxbaxay saawgeed waxaan soo dhaweysanaa muraayada markaan soo dhaweysano waxaan jareynaa baantulkan soo qaadanayna ama tigteere lagu calaamadiyo wax waan goynaynaa wajiga ayaynu goynaynaa wajiga markaynu goyno wajiga markaan soo goyno waxa muhiim ah marka aad wajiga goynayso inaad ilaaliso qofka kale ee videoga wajiga soo dul saarayso wajigiisa inta uu leeyahay haddii aad wajiga ilaa dhegta goyso dhegtii kale iska dul muuqdaan waxa laga yaabaa in iskafaan laakiin wajiga markaad wajiga inta qulaatay uu ka soo baxay aad goyso si fiican buu u leekaanayaa aynu wadno videoga markaynu soo goyno aan full screen ka dhiganaa kadib waxaan ku sameeynaa fadar waxaan gelinaa fadar ama khafiifan ka dhiganaa hareerihiisa khafiif markaan ku dhigno waxaan ku sameeynaa waan istagareynaa kaynu nasti leenahay waa layerkii aad marka hore video originalka ahaa markii aad ku sameysay maska ama wax qayb kale aad ka goysay si ay u socoto qaybta qulaateed goysay in qaybta kale uga soo dhex bixin wareega ama goobada aad ku sameysay video kale video ku dhaqaaqaya soo uga soo dhex bixinaan wareega aad ku sameysay video kale uga soo dhex gelin nasti sameeyso nastigaas wuxuu ku faa'iideynaa inuu intaad goysatay oo qulaatay ku hayo aynu wadno nasti markaynu niraahno usaa yahay waxaan soo qaadanaynaa korban oo raranaa kadibna waxaan soo qaadanaynaa videogii labaad baynu soo qaadanaynaa videogeena labaad markaynu soo qaadano waxaan hoos dhiganaa videogeeni koobaad hoostiisa ayaynu gelinaa kadib waxaanu raadinaynaa meesha uu qofkaas soo galaya ama videoga kale meesha uu ku dhamaanayo istaagiisa meesha uu ku istaagayo effectska ayaynu tagnaa effectska markaynu tagno waxaan ku qoraynaa transform marka hore waxaan sameynaynaa videoga waxaan ku beegaynaa videoga kale qofkaas meesha uu soo istaagayo tusaale ahaan qofku soo socdaa videogaas uu soo socdaa meesha uu istaagayo iyo wajigii aynu goosanay meesha uu ka bilaamayo baynu isku beegaynaa transformka markaynu soo qaadno waxaan dul saaraynaa videogii wajiga si aynu u dhaqdhaqaaqa ugu sameyno waxaanu tagnaa qaybta positionka waxaanu ku beegbeeganaa wajiga labada waji waan isku beegbeeganaa si hal waji u noqdaan waxaanu soo gudbaynaa scale-ka inaan wajigii ku weyneysiino waayo wajiga labada waji way kala dhuuban karaan kadib waxaan ku sameynaa scale waan ku soo weyneysiinaa kolba meeshii wajiga way iskaga mid yihiin ama iskaga beegmayaan baan ku beegbeeganaa markaan scale-ka saa ugu beegno scale-ka markaanu ku beegno waxaanu tagaynaa positionkeenu ku noqonaa kadibna keyframe baan ku sameynaa keyframe-kaas markaan ku sameyno kolba wajiga kale dhinac u dhaqaaqo
baynu wejigana u dhaqaajinayna si ay isku mid noqdaan. kolba wejiga soo dhaqaaqo baynu dhaqaajinayna skiilka waan la soconaynaa keyframe kaas ay noo soconaya by step by step xabad baynu la soconaynaa wejiga kolba dhinac u dhaqaaqo inagoo keyframe ka kolba ku celcelinayna position-kana ku beegbeegana kolba meesha wejigu tago wejiga kale aan geynayno. intaa markaynu dhammayno position-ka saa u dhammayno position-ka markaan dhammayno waxa inoogu xigay rotation-ki kor hoos dhinac iyo dhinac weeyaan afarta gees weey. kadib rotation baa noo haray oo qof wax laga yaabaa qalqalooca galaya inuu wejigu isqaabili waayaan. kadib waxaan tegaynaa rotation waynu ku rogaynaa kolba wejiga kale inuu ku dul beeganaa dhinac u dhaqaaqo baynu isagana u rogaynaa si hadduu saa u dhaqaaqo wejiga kalena saa u la rogmo. okay isagana keyframe ku sameynayna si uu la socdo. keyframe-ku haddii bartay ku yar noqono waa dhaqdhaqaaqa uu sameynayo waxa aad wax ku beegaysaa dhaqdhaqaaqa uu sameynayo si uu ula socdo dhaqdhaqaaqa waa inaad keyframe isticmaasho ama dhibicda yar ee uu ku saarayo ka dhaxarka programka. marka dhaqdhaqaaqa loo sameeyaa inuu dhibic yeeshaa si uu ula socdo dhaqdhaqaaqi kale adigoo dhamaadka ilaa iyo bilowga ku wadaya. markaynu position-kii dhinacyada aan ka leekeysino wejiga aynu ku qalqalocno kolba wejigu soo qalqalocsameeyo aan rotation ku sameyno isagana keyframe u sameyno scale-kii iyo kolba wejigu soo weynaanayna aynu la ku beegno waxaan ku sameynaynaa screen. kadib waxaan u bedelaynaa halkii normalka ahayd baan u bedelaynaa screen-kaas wuxuu inoo faa'iideynayaa in labadii weji ay isku mid noqdaan oo wejigii kale ka dhex baxo labadii weji say u noqdaan hal mid. screen markaanu niraahno ku noqo layerkii hore markii hore soo sameysay kadibna copy kadibna dushiisa ku basti garee. markaad ku basti gareyso laba layer ku noqdo kadib waxaad sameynaysaa layerka aad copy-yeysay ee basti gareysay isagana waxaad ku noqonaysaa position-kii iyo scale-kii iyo rotation-kii si ay u noqdaan different location ama dhinacyo kala duwan oo wejiga ka soo baxo. wejiga marna halkan gee marna kor gee marna hoos gee marna dhinaca u qalooci si wejigu u noqdo mid dhinacyo kala duwan ka imanaya. marka layerka labaad wuxuu kuu faa'iideynayaa inaad u sameyso dhinacyo kala duwan adigoo ku noqonaya position-kii aad bedbedelaysaa scale-kiina waad bedbedelaysaa sidoo kale waxaad bedbedelaysaa rotation-kii. markaad dhamayso kadib ka qaad shootar angalka tigta dul saaran kadib waxaad ka dhigtaa shootar angalka waxaad ka dhigtaa 270. shootar angalkaasi wuxuu sameynayaa inuu raaciyo bular warwareejinta ama shootar angalkaas ayaad ka dhigaysaa 270. markaad intaad dhamayso samee mar kale copy garee layerkii labaad 3 layer baad ka dhigaysaa labada layer meesha ka siman yihiin laba jeer ka durug markaad ka durugto ku dul dhufo kadib si uu u duwanaado kalarka tag ku darso in yaro madow adigoo oo black tagay blackta minus waxaad ka dhigtaa 30 soo kale shadow ka dhig -20 ama -18 kolba inta doonayso. inta markaad sameyso ku soo noqo effects markaad ku soo noqoto ku qor gashin bular markaad ku qorto waxa saartaa layerka ugu sareeya isku day in transform-kii aad sameysay uu ka sareeyo gashin bularku. kadib bularneska waxaad ka dhigtaa 15 meesha ay bularnes ka qoran tahay 15 ka dhig. kadib plane mode-ka marka hore aan screen ka dhignay u bedel halkii screen-ka ahayd lighting color ka dhig layerada 3 layer ku beeg layerkii video ahaa kadibna waxaad ku furtaa transaction 3 transaction
kufur saddexda transaction kufur saddexda transaction markaad ku furto transaction-ka soo gaabi oo xagga ugu dambaysa keen waxa inoo haray speedka marka hore waxa tagaysaa video-ga kala geeyaysaa qaybta hore video-ga iyo qaybta dambe aad kala geeyaysaa qaybtu qofku socdo speed baad gelinaysaa 800 baad ka dhigaysaa speedka 800 markaad ka dhigto waxa tagaysaa waxaad oran saaraad click waxa tagaysaa slow clips key frame xagga ugu hooseysa layerka ama taxanaha soo siinayo kadib marka halka tagto waxaad ku dhufanaysaa time reminder markaan ka sii tagno waxaan ka tagnaa speed markaan tagno video waxa wuxuu noo yeelanayaa linear baa dhex galaya video-ga qaybta aynu slow motion ka gelinayno baan toolka inta soo qaadano qaybta baan toolka ayaynu ku dulfanaa calaamadaasaan ku sameeynaa calaamadaasaan yara kala jiidina calaamada markaynu kala jiidno halka linka baynu hoos u dhiganaa ilaa aynu ka gaarsiino 4 ilaa 3 kolba intii aynu ka gaarno 4 ilaa 3 ku dhufano calaamada yar ayaanu ku dhufanaynaa blue baynu ka dhiganaa kadib linka baan isku siminaa slow motion kii iyo speed kii ay u noqdaan kuwa maaragtay isku dheeli tiran marka intaas sameeyna video-gan eegna wow wuxuu noqday speed buu soo galayaa slow motion-na ku dambeynaya way kadib marka intaas sameeyna waxaan sameeynaa color-ka ayaan haray waxaan sameeynaa color-kii oo inoo diyaarsan intaan saddexda layer ka qaadno baynu color-kii soo dhex gelinaynaa color-kii oo inoo sameeysan baynu soo dhex gelinaynaa color-ka markaynu soo dhex gelino waxaa noo haray cinematic line-ka waxaan taginaa effects-kan taginaa crop baynu soo qaadanaa crop markaynu soo qaadano waxaan saaraynaa video-geeni hoose markaynu saarno baynu xagga waxaan taginaa effects panelka waxaan ka dhignaa halka 15 si aan wajiyada u kala duwano waxaan sameyn doonaa color-kan ku noqon doonaa color-kaas aynu casaan ka dhigi doonaa casaan iyo blue ugu kala dari doonaa labada qaybood iyo in yaro contrast markaynu colorada saa u yar darno boom video-gu wuxuu noqday sidan aad baad mahadsantihiin daawashadiina aad baad u mahadsantihiin halkaan naga daawanaysaa waa Yool Studio waxaan jeclaan lahayn inaad haddii aad nagu cusub tahay subscribe tiraahdo haddii kale aad hore noola joogtayna share-ta iyo like-ta aad nagu dhiirigeliso aad baad mahadsantihiin waa inoo cashirka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu